kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janaalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona isku day dil oo markii afraad uu ka badbaadayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba ayaa ka dambeeyay amarka lagu qaarajin rabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shalay gobol dhici. dowladda federaalku maxay ka tiri tallaabo ceenkii ayuu qaadi karaa madaxweyne Xasan Sheekh kadib iscaafintii la gaaray. haddaba waxaan soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tallaabada xigta uu qaadayo kadib isku daygii dilka uu ka badbaaday. sidoo kale waxaa daawan doontaan ciidamada Kenya ayaa xalay dhexe waxa ay duqeen dhanka cirka ah ay ka fuliyeen gobolka Gado ay ku laayeen shacabka gobolkaas. hooyo iyo caruur ayaa la soo sheegaya in halkaas ay ku dhinteen. haddaba maxay ka damacsan yihiin Kenya? maxaase xilligan soo celiyay diyaaradaha duqeymaha ay ka fuliyeen gobolka Gado? wararka ugu dambeeyay ayaa sidoo kale daawan doontaan madaxweynaha maamulka Puntland wuxuu xafiiska ra'iisul wasaare Roble u gudbiyay xubnaha guddiga doorashooyinka ugu mid noqonaya heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaa sidoo kale aad daawan doontaan warar kale ee gobolka bariga dhexe waxaana ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha Yahuudi Israa'iil oo markaan wajahaya xilka qaadisi kadib markii mucaaradka ay u heshiiyeen. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa. saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambarkana furo wala sharagalay saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinku markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. aan ku bilowno. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo kolonyo gaadiid ah oo la socday madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa lagu rasaasiyay magaalada Muqdisho. sida aanu helnay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh ayaa lagu rasaasiyay bar ay ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin agaarka xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne. kolonyada la socda Xasan Sheekh ayaa waxaa marqura la hubiyay rasaas xoogan iyadoo oo la soo wariyay in ilaalada Xasan Sheekh aysan marnaba ka jawaabin rasaasta midaas oo baajisay isku horimaad dhexmar lahaa labada ciidan. wararka ayaa intaas ku sii daraya in rasaasta lagu furay Xasan Sheekh Maxamuud aysan wax khasaaraha ka dhalin kadib markii madaxweynaha amray ilaaladiisa inay isxakameeyaan isla markaana aysan ka jawaabin rasaasta lagu riday. hase yeeshee xogo kale oo aan helna ayaa sheegaysa in rasaasta ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidanka ilaalada u ahayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar kale oo ka tirsan ciidamada kale ee ka soo horjeeday. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka yimid shir nabadgelyo ah oo ka dhacay hotel Elliot ee xeebta isagoona u socday shir ay lahaayeen midowga musharaxiinta mucaaradka xilli ay ciidamada dowladda federaalka ay ku fureen xabadaasi. intaasi kadib waxaa baraha bulshada hareeyay hadalhaynta ku saabsan qaarajinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la damacsanayeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. xildhibaan oo la socotay madaxweyne Xasan Sheekh oo la hadlay warbaahinta ayaana falkaas ku tilmaamay mid kula kac ah isla markaana ciidamada dowladda federaalka ay doonayeen in madaxweynuhu ay ku qaarajiyaan hase yeeshee ee markaasi dhici weysay. wasiirkii hore ee amniga ee gudaha Cabdirasaaq Maxamed oo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka ah iyo mas'uuliyiin kale oo la socotay kolonyadii la xabadeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbaahinta u sheegay in markaas rasaasta ahayd mid si ula kac ah loogu furay ciidamada isla markaana madaxweynaha xilligaas uu ku jiray gaariga nooca aan xabada karin ee bulletproof loo yaqaano. Mahad Salaad ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraha laga rabo tallaabo degdeg ah oo kan ah arrinta lagula kacay madaxweynihii hore isagoona dalbaday in sharciga la hor keeno ciidamadii rasaasta ku furay iyo ciddii markaasi ka dambeysaba. xildhibaanada qaarkood ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu amar ka dhiibay isla markaana lagu rasaasiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonayo midkii saddexaad ee lagu beegsanayo iyadoo markaas dhawaan xal laga gaaray xiisadii ka dhalatay doorashada dalka. si kastaba rasaasta lagu furay kolonyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan ka dhalin wax khasaare ah kadib markii uu madaxweynihii hore amray ilaaladiisa in ay isxakameeyaan si loogu baaqso iska horimaadka sababi lahaa khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo aad u xoogan. qaybihii hore ee janaalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambarkana furo wala share gareeya saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinkoo markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. markaana xalay saqdi dhexe diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa waxa ay xalay saqdi dhexe duqeyn dhanka cirka ay ka geysteen deegaanada gobolka Gado halkaas ay ku dhinteen hooyo iyo cunugeeda oo aan waxba galabsan. deegaanada la duqeeyay ayaa kala ah Ceel Cadde, Likoli
haleeley, warburay iyo sidoo kalente buurcaleen, dhamase, warguduud, qulqul, shubuul, ballan baal iyo sidoo kalente mudadaale, aroone, buursane, caws, waa coos quran iyo daarusalaam. khasaaraha ayaa sidoo kale la sheegaya in intaas uu ka badan yahay maadaama xalay habeen saqdhaxa ay ahayd islamarkaana ciidamada ay duqeen aan kala soc lahayn ay ka geysteen gobolka Gado deegaanadaas aan soo sheegnay. ilaa ay hadda ma jirto cid faahfaahinaysa oo ka tirsan maamulka gobolka Gado iyo dowladda federaalka Soomaaliya jawaabna aysan ka bixin. dhankooda Kenya ayaa weli ka hadlin waxa ay diyaaradaas ay u duqeysay xalay gobolka Gado, meeshaas oo ay la ogyahay in ay deg yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si weyn halkaas u ilaaliya amniga, sidoo kalena gafur culusta dhibaato ba'an ay ku qabaan. waxaana tani ay ka dhigan tahay in ciidamada Kenya ay dhowr mar ay sameeyeen isku day ay ku doonayaan in ay ku qarajiyaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadooda, halkaas oo isku duubni weyn ay ka muuqato iyo horumar laga gaaray kadib Axmed Madoobe iyo gafur culusti la socotana halka ay ka baxeen gobolka Gado si aqlabiyada leh ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ciidamada booliiska Haram Cad ay maamulayaan. qabiilada ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal, wararka kale ee ku jira janalkeena ka ayaan eegaynaa markaan. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u soo gudbiyay xubnaha guddiga doorashada ugu mid noqonaya kuwa heer federaal iyo sidoo kale kuwa xalinta khilaafaadka iyo kuwa dowlad goboleedyada. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Dani ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku matali doona maamulka Puntland kuwaas oo gaaraya 8 xubnood. warqadda uu madaxweyne Dani ku soo magacaabay xubnaha ayaa lagu socodsiiyay xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoona markaas lagu cadeeyay in ogolaasho ay ka haysato xafiiska madaxweyne Farmaajo. mudane ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaan halkan kugu wadaagaynaa magacyada Puntland ku matali doona guddiga doorashooyinka heer federaal ee SID ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland, waxaana kaliya xubnaha guddiga oo ka kooban 8 xubnood: Cabdirakiin Muuse Maxamuud, Muuse Cabdulqaadir Ducaale, Axmed Cabdi Maxamuud, Caynaashe Yuusuf Xuseen, Ciidruus Axmed Faarax, Cabdirasaaq Cabdulle Faarax, Farxiye Xuseen Maxamuud iyo Canab Xaaji Salebaan Warsame. Axmed Madoobe ayaa dhankiisa hore u soo magacaabay oo ah madaxweynihii maamul goboleedkii ugu horeeyay ee 12 xubnood oo guddiyada doorashada ku matali doona Jubbaland, halka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashina uu soo magacaabay 6 xubnood oo markaasi kala bar ah xubnaha guddiyada doorashooyinka ku matali doona gobolada waqooyi ee Somaliland, Jubbaland, Puntland iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa noqonaya dhinacyadii ugu horeeyay ee qaada tallaabada lagu fulinayo heshiiskii maalmo ka hor lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho, kaas oo meesha ka saaraya madowgii raagaadiyay hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. warar kale ee gobolka Geeska ayaa markaan eegaynaa saaxiibayaal, hay'admaamina inaad subscribe noo saartaan gabadha kana furataan una sharaxaysaan saaxiibadiin meel kasta ay joogaan, idinkoo markaas like commentiga inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. markaana Israa'iil, hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa shaaciyay inuu awoodi karo dhismaha xukuumad isbahaysi wadaaga, tallaabadaas oo muuqata mid soo afjaraysa xilligii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu uu awood hayay 12 sano ee la soo dhaafay. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka aad kala socoteen janalkeena ka ah wararka. fadlan hay'admaamin inaad subscribe ka saarto gambale kana furato una sharaxayso saaxiibada meel kasta ay joogaan, adigoo markaas commentiga like-na inoo reebaya. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada janalkeena ka ah wararka. fadlan ka qayb qaata dib u dhiska dalka aan ku sameynayno. aad baad u mahadsantihiin.